26 bishan waxaa la filan karaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya inay gasho jawi kale oo siyaasadeed kadib markii dhawaan ra'iisul wasaaraha dalka uu casuumaad u fidiyay golaha wada tashiga qaran. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, madaxda dawlad goboleedyada dalka ka jira iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa lagu wadaa in sabtida shir uga furmo caasimadda dalka ee Muqdisho iyadoo loogu arinsan doono wixii qabsoomay heshiiskii dhinacyadu ay wada gaareen 27 bishan kaasi oo ugu wada fariisteen teendhada Afisiyoni ee magaalada Muqdisho. Maxamed Xuseen Roble, ra'iisul wasaaraha dalka iyo mas'uuliyiinta ayaa qalinka ku duugay 5 qodob kuwaas oo kala tubta xalinta cabashada la xiriira gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dawlad goboleed, hanaanka xalinta khilaafaadka gobolka Gado, xal u helida gudiyada maamulka doorashada ee xildhibaanada gobolada waqooyi, qoondada haweenka iyo waliba 60 cisho in dalka uu doorasho looga qabto. waxaa la fahansan yahay ilaa hadda in hal qodob uu ka qabsoomay heshiiskaasi, waxaana qodobkaasi uu ahaa xalinta cabashada la xiriira gudiyada heer federaal iyo waliba heer dawlad goboleed oo dawlad goboleedyadu soo wada gudbiyeen iyadoo ra'iisul wasaaraha uu sabtidii magacaabay gudiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka. madaxda waxay garowsan yihiin in 60 cisho ay ku qabsoomi karin doorashooyinka baarlamaanka iyo midda madaxtooyada, waxayna mar kale qorsheenayaan inay jihayaan doorashooyinka dalka. warar ayaa inoo sheegaya in madaxda dawlad goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle ay doonayaan in 6 deegaan doorasho lagu soo koobo doorashooyinka badalka 11 goobood ee lagu qaban lahaa si la madax doorashadii dhacday 2016 oo 6 goobood ay ka dhaceen. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, hogaamiyaha ka taliya Kismaayo, ayaa la fahansan yahay in cadaadis ay ka haysato caasimadda gobolka Gado iyo Garbaharey iyadoo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, hogaamiyaha ka taliya Baydhabo, uu door bidayo in doorashada lagu soo wareejiyo magaalada Braawe sabab ku aadan amnigeeda oo kula walacsan yahay hogaamiyahaasi. halka Cali Guudlaawaha ka taliya magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle uu walaac ka muujinayo Beledweyne hadii dadka deegaanka u kala qaybsamaan dhismaha maamulka uu madaxweynuhu haatan ka yahay. wararka ayaa intaasi ku daraya inay u badan tahay in madaxda isku raaci doonaan in 6 goobood doorasho lagu soo koobo doorashooyinka dalka hadii muddada shirka uu socdo aynan arrimo kala soo bixin kuwaasi oo kala magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo, Kismaayo, Jowhar, Dhuusamareeb iyo waliba Garowe. dadka u dundulweelo arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo guud ahaan dalka ayaa sheegay in arrintan mucaaradka ay kala kulmi doonaan bulshada qaybteeda waa hadii deegaan doorashada lagu soo koobo isla markaana ay baalmarsan tahay heshiiskii Sebtembar 17keedii. marxaladaha ku gadaaman doorashada sanadkan ayaa ka dhigaysa in Soomaaliya wajahayso doorashadii ugu adkaysan iyo dib u yegleelidii dawladnimadeeda muddo 21 sano laga joogo.